الله نحرسته وكو قلبي نكاس وكو دنتي مديدا كي لبادنا غعنتو كاga jeexay halkaas uu kaga jeexay lix qodob buu dhakhtarku talo isbitaalkan isna ugu tagnay kiiskaasi saacad kadib horta gacantan ku dhignay eedaynaashii kalena gacantan ku dhignay kiiskaasi saaka boqolkiiba boqol buu dhameystiray baa dhacay saddex nin baa weerar tagay oo nin gabadh meel ku hayay maartay la sheekaysanayay bay markaa weerareen abaareen marxuumka dhintay waxaan leenahay ilaahay hooyadii iyo ehelkiisa samariyay man ka siiyo taliyaha qaybta booliska gobolka Gabiley iyo taliyaha saldhigga dhexe ee magaalada Gabiley ayaa si wada jira uga hadlay dil xalay ka dhacay saqdi dhexe magaalada Gabiley dilkaas oo ku naf waayay wiil la yiraahdo magaciisa Mubaarak Dayoor haddaba iyagoo dilkan ka hadlaya ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa waa taliskii qaybta booliska Gabiley waxaanu ka warbixinaynaa hadii la yiraahdo xaalad xalay ka dhacday Gabiley tabadan aan ku badnayn degmadan waa degmo nabadgeliyo xataa kooxo iyo shufto habeenkii aanu ka hawlgalno ma jirto inta imtixaanka ardayda qishka diidaysay murmaysay mooyaane magaalada waa magaalo nabadgeliyo badan kuma hayno dhibaato wax moobala booba burcad badan wax burcado wax boobaya ma hayno kulli booliska iyo magaaladu way iska warhayaan waxay noogu jirtaa gobolladan ka soo shaqeynay ama degmooyinkii aan soo maray degmooyin badan ma soo maray degmooyinkii aan soo marnay waa degmada iigu nabadgeliyo badan degmadani xalayto ayaa cabaaro 10kii aniga iyo taliyaha CID iyo howlgelinteeda iyo kulsraakiisha annagu halkan qaybta fadhina ciidankaygii frontadii ayuu war soo gaaray warkiiba ay noo soo gudbiyay waxay yiraahdeen dhalinyar waa meel halkaas saddex dhalinyara iyo nin gabadh meel seesa ay wada fadhiyaan gabadh wada sheekaysanayeen ayay saddex dhalinyar iyo damceen ay ku baydeen saddexdii dhalinyarta ahayd iyo ninkii way isku dhaceen way murmeen murankii wuxuu keenay in gacan la isku leeyo gabadha gurigooda meel aan ka durugsanayn oo u dhow wiilkii gabadhu ay fadhiyeen saddexda dhalinyarta baa soo ag martay siday noogu warameen burcad hore iyo balaayo hore anagu kaga maanaan arag laakiin waxay sheegeen iyagu ka dhintay ma hay labadii hadhay in meesha markaanu marayno dabacna galay oo dhalinyarta labada inanka fadhiya meesha u dabacna galay oo isla mobilada ma ka qaadataan sida dhalinyarnimo bay noo gashay deetana ninkii uu nabad dagaal baa dhex maray bini aadankuna markuu ardo wax gacantiisa ku jiro ku dagaalama waxaan la dagaalantay laba dhalinyara ayaa isaga qabsatay isaga laba qabsatay saddex bay ahayn laba isaga qabsatay labadii haysatay ayuu deysna awoodiisa u isticmaalay waanu xanaaqay hubkii uu haystay uu isticmaalo midi yahay mididii buu markaa midna xuurtu ka hayay kii kale uu dhabarka ka galiyay laba goor Allah naxariisto ugu galbaday ninkaas uu ku dhintay midida kii labaadna gacantu kaga jeexay halkaas uu kaga jeexay lix qodob buu dhakhtarku talo isbitaalkan isna ugu tagnay lix qodob buu halkaa laga tolay isna isbitaalku yaala kaasina ciidan baana ku ilaalinaya Allah naxariistay marxuumka kalena uu dhintay waanu ka daba tagnay waxnu raadca tagnay idii gacanta geysatay 10kii barkiiba gacantaanu ku dhignay eedaysanihi ninka dilay midida ku dhiftay gacantan ku soo dhignay saddexdii labadii ka dhintay ma ahay labadii la socotay wehelka u ahayd ka dhintayna labadina gacantan ku soo dhigno midna dhakhtarkan ku qabanay midna magaaladan ka soo qabanay inantiina kala fadhidayna waan soo qaadnay iyadana oo kulli marxaatu noqon doonta iyadoo soo qaadnay cadeymihii aanu ka qornay afartan nool ee gabadhu ku jirto isku mid bay noqdeen isku mid meel kaliya kuma kala beeyrin hawshaasi ilaahay baa sida noogu fududeeyay cid naga maqan ma jirto oo eedaysana ama gacan ku dhigla cidna naga gacantaanu ku haynaa waxaan u mahadnaqaynaa cidii hawsha nagala hawlgashay warbixintana soo siisay dilku u dhacayo maqaadiirtu iska dhacaysa laakiin wax weeye alxamdulillah ilaahay waxaan mahadnaqaynaa kiiskaasi saacad kadib horta gacantan ku dhignay eedaynaashii kalena gacantan ku dhignay kiiskaasi saaka boqolkiiba boqol buu dhameystiray saacada wala dhageysan kara hadii ka dhaawaca nidaamka sharcigu saamaxo oo nidaam baa jiro oo waqti dacwada la dhageysan kariyo waqti kale jira wixii dhinaca sharciga aan ahayn booliis ahaan kiiskaas waa naga dhan yahay
saacadda aan joogno waa la dhageysan karaa waa dhammaystiran yahay eedasayaashiina hadda xabsigay joogaan marxuumka dhintay waxaanu leenahay ilaahay hooyadii iyo ehelkiisaba samariya imaan ha ka siiyo annagu ka bilays ahaana waajibaadkii naga saaraa ee qaranka aanu haynuu noo egmaday waanu qabanay gacan ku dhigli gacantaanu ku haynaa kii kale ee la socday waanu haynaa marxuumku tallaagadu ku jiraa sidaasay hawshu u qabsoontay sida taliyuhu uu sheegay dil baa dhacay dilkaana waxaa geystay kolley waxay ahaayeen ilaahay inaa lillahi wa inaa raajicuun waxay ahaayeen 3 nin baa weerar tagay oo nin gabadh meel ku hayay maartay la sheekaysanayay bay markaa weerareen abaareen kolley waajibaadkii dee arrintii qadarkii ilaahayna uu dhacay kolley isna maartay uu dagaalamay calaa kulli xaal sidaa geystay nin buu dilay ninna uu dhaawacay intoodii waan wada haynaa dhammaantood afartoodiiba eedaysanay kaa dhintay mooyaane 3dii kaleba way xidhan yihiin sidaa saraakiisha kaleba idin sheegtay taliya qabtoodii sheegay iyo taliyaha siyaadhiidu dembigooguna uu dhammaystiran yahay kolley dadka shacabkaana waxaan ka codsanaynaa sida ay nolol shaqeeyeen unanay nolol shaqeeyaan mar kasta gobolkuna waa gobol iska nabadgeliyo oo runtii aad iyo aad dhalinyartoodu aad iyo aad iyagaa nala shaqeeya oo runtii wax badan ka howlgala ka toorreeda keenaya iyo ka maartay midida sheegayaaba intuba waa gobolka marka runtii kolley kiiskaasi si fiican oo sharaf